runtii waxaan rabaa maanta inaan salaad iyo bogaadin u diro shacabka Soomaaliyeed ka soo joogaan. waxaan rabay sidaan maalintii aan halka aan soo degtay aan u sheegayba su'aashii yarkay warsaday arrimihii badaha ku saabsanaa inaan xoogaa ay ka warbixiyo maadaama hadda maxkamadda caalamiga socoto. waxaan rabaa horta fursadda inaan uga faa'iideysto inaan bogaadiyo runtii aan mahadna u celiyo khubarada iyo qareennada mathalaya dowladda Soomaaliyeed sida hufnaanta iyo wanaagga leh ee u mathaleen kiiskeena iyo sida ay u tuseen Soomaali iyo adduunka oo dhan wixii isfahankii la gaaray 2009 la siixay inuusan shaqo ku lahayn waxna aysan ka gelin wax xuduud la dhaho ay ahayd kaliya sababtii keentay iyo sababtii la isugu yimid ay ahayd in maadaama annaga aan doonayn inaan ku darsano badeena meesha la dhaho EEZ oo hadda 200 nautical mile ah inaan ku darsano 100 ilaa 150 hadba meesha ay gaarto in labada dowladood aysan marna isku hor imaan xaraynta meeshaas waxay ku cadeyd ciwaanka isfahanka ee la soo keenay waxayna ku cadeyd qareemada hadalka ay ka jeediyeen muxuu ahaa maxkamadda caalamiga. waxaan filayaa yani uma baahna maanta inaan kasii fasilo maadaama ay qareenadii si fiican u dhigeen, laakiin waxaan rabaa umad Soomaaliyeed inaan xaqiijiyo dowladda Kenya arrimahan borderka iyo waxa ay samaysay iyo vertical line waxay samaysay 2005 ayay proclamation of boundaries wax loo samaysay ay bareertay. annagana markaas dowladda ma ahayn qof sideeda oo gurigaada ama dhul alladiga aad leedahay yani yiraahdaa qayb baan anigu ka leeyahay waa iska dhicinaysaa waana aad markasta oo dacwo iyo wasi alla iska dhicinaysaa. laakiin arrintii isfahanka ahayd ee runtii dad badan la marin habaabiyey ee lagu sheegay inay ahayd xuduud iyo waxaas marna xuduud ma ahayn. qareenadeennina waa caddeeyeen maxkamadda ka caddeeyeen waxa ayaan dara ah in dad ayagoo la socda xaaladda runta waxay tahay inay marin habaabiyaan ummadda Soomaaliyeed inay siyaasad u isticmaalaan waqti runtii dalku u baahnaa arrintan maadaama ay tahay wax arrin qaran ee meel in lagu soo wada jeesto. maanta qofkii damcaataa ka dhulkeenna inayna meel ugu soo wada jeesano kana dagaalno runtii Soomaalina aan tusna inaan la haweysan karin meeshii laga doonayay dadkaas in saas loo soo wada jeestay ee runtii arrintan arrin qaran tahay ayaa haddana waxaa loo isticmaalay arrin siyaasadeed doorasho lagu raadinayo waana ayaan dar in ummadda Soomaaliyeed saas lagu marin habaabiyo. laakiin nasiib wanaag qareenadeena oo markasta bogaadinayo oo mahad celinayo ayaa runtii cadeeyay waxa ay tahay. waxaan rabaa inaan cadeeyo annaga maalintaas 2009 submissionkii aan sameynay ee ahaa inaan codsano ka badan inta 200 nautical mile ee aan xuquuqdu leenahay in maanta aan ku helnay ilaa 350 dhul ah. marka la isku darana dhulka hadda Soomaali aan u soo hoynay ee badda ah ee berita laga macaashi kara gaas iyo oil in laga helo inay maanta dhantahay 600 oo kun oo kilomitir square. baaxadaas waxay u dhowdahay baaxadda dhulka aan ku fadhinaa. runtii Soomaali waxa uu soo saaciday wanaag iyo yani baaxad badeed aysan hore u lahayn maanta inay kheyraadkeeda iyada leedahay. arrintan xuduudka ah ee Kenya ee 2005 sano haddii MOU-dan la isku keenay iyo haddaan la isku keeninba markasta inaan dacweyno oo aan yani ka leexino oo aan ka saarno meesha ay sheegatay waajib qof kastoo Soomaali asaalan way. 2009 markaan London ka hadlay ayaan ku cadeeyay hadalkaygii maantana ku soo celinaya taako dhul ah ama bada oo Soomaali leedahay marna kama ogolaan qof inuu ku soo yani takrifalo ama soo haweysto haweeraatay inta aan noolnahay haddaan mas'uulnahay iyo haddaan ka degay mas'uuliyadda intaba waxay meel baa soo jeesanayna dhul Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed qof soo haweysan kara ma jirto. hase ahaatee waxaan rabaa inaan uga digo runtii dadkan hadda siyaasadda u isticmaalaya ee isla arrintan doorasho ka dhigta runtii inay ka wantogaan waa ayaan daro in meeshaas laga raadiyo doorasho iyo arrin qaran oo sunta Soomaaliya dhan ay tahay meel lagu soo daristo in laga raadiyo meel doorasho loo heli karo doorasho laga gali karo. doorasho waxa lagu galayaa wixii qof kasta sameeyay iyo wixii qof kasta oo Soomaali u hayo 4 sano soo socota.
marka waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo runtii dadkii arrintan qayb ka noqday. waxaan rabaa inaan u caddeeyo dacwadan iyo lawyerska hadda wada dacwada dowlad aniga ra-iisul wasaare ka ahay ayaa la shaqaynaysay saacidaysay ilaa iyo meesha maanta joogta dacwadan in la keenana sabab u ahayd. meeshaas kamana daalayno markastana waan ku mintadaynaa in annaga wax alla waxay dhulkeena ummaddeena haweystaa aan meel uga soo hadno haddii la yidhahdo. marka waxaan rabay ummadda Soomaaliyeed ee runtii lagu marin habaabiyey waxaa la gatay bad, waxaa la sameeyey saas, waxaa la yeelay kan, in waxaas ay waxba ka jirin qareennada inay dhegaystaan dacwadaasna waxaan rajaynaynaa insha Allah waan ku adkaanaynaa waan ku guulaysanaynaa dhulkeennana qof isu dhawaanaya walaah. marka intaasaan rabay inaan maanta aan shacabka Soomaaliya u jeediyo gul baan u rajaynayaa insha Allah qareennada maanta xaqooda taagan arrintaana runtii ummadda in la siyaasay maaha Soomaaliya in la marin hawaayo maaha waa mahadsantihiin. mudane ra'iisul wasaare Kenya waxay maxkamadda kaga doodaysaa oo ay la yimaadeen iyagii garyaqaanadoodu in aysan arrintan maxkamad u baahnayn waxaan ku adkaysanaya isfahamka xukuumadda la gaartay. dad badan marka arrintaasi u jaahwareereen arrinta Kenya iyo Soomaaliya xilliga ra'iisul wasaaraha ay afgaradka gaareen ma wax ku saabsaneed xuduudba mise qalfoofka guud oo kale sidoo qalfoofka guud ee badda ku saabsaneed waxaa jirtay UN-ka ayaa wuxuu yidhi sheekada say ku timid waxayd UN-ka ayaa wuxuu yidhi Afrika dowladaha marka ay qalfoofka codsanayaan dhulkooda dhulka badan inuu jiro waxaa loo baahan yahay dowlado gacan ka siiya. annaga dowladda Norway ayaa arrintan u istaagtay inay gacan naga siiso sidii qareennada ay caddeeyeenna MOU-daas waxaa draft gareeyey iyada ahayd. iyada dowladdii waxaan draft gareysay iyo annaga iyo Kenya markii aan isla gaarayna wax xuduudana lagama hadlin wax borders lagama hadlin waxa ay ahayd oo ciwaanka MOU-da ku caddaana waxay ahayd see qolo kasta u codsataa dhulkeeda baddeeda ee xaq u leedahay qalfoofka ah meeshay gaarsiisan yihiin iyadoo aan la ismacaaradin oo aan la iska horkeen yani aanan dacwad aanan qolo kasta qolada kale is hor istaagin. waana wax procedure markii bad dad ay codsanayaan mar kasta ay sameynayeen. annagu arrintaasi markii aan aragnay Kenya inay si xun u isticmaashay isfahankaas waxaa ka dhidhiyey baarlamaanka Soomaaliyeed oo runtii isla markii diiday isla markii annagu waraaq waan qornay aan leenahay waan ka baxnay kumana jirno sida ay u samaysana waa si khaldan. marka intaas ayaan ahayd runtii arrintaas waxaanan ku faraxsanahay in annaga submissionkii aan sameynay aan ku codsanayna maanta meel fiican marayo oo ilaa 350 nautical mile ilaa ay baddeena gaarsiisan tahay. overall marka la isku daro inay 600 kilomitir oo square ay tahay waxa maanta noo soo zaa'iday. Kenyana waa caddaatay waxa ay raadinaysay inay ahayd dulmi 2005 habka ay u sameeyeen verticalka inay khaldanayd hadda ka hor bay mar 1989 sidoo kale ay sameeyeen ay damceen inay haddana line-kaas qaladka sameeyaan laakiin sida sharciga caalamiga qabo dhulka badda waxaa lagu cabiraa waxa loo eego distal line waana sida ay sharciga tahay. sharciga annagu qabnaa inuu xuduudkeena uu yahay sida sharciga ay ku distalka qabo وانا خير قول سنة ان شاء الله باذن الله تعالى. دعوة المحورة madaxda aad baa looga hadlay qareenna la diray isniintii baa ka dhacday Muqdisho intaas oo dhan adigu ma hadlin oo sidan oo kale ma hadlin arrimaha markaas aad ka looga hadlayo waxay isku duubneedaan waxay in loo doodo oo badii wax laga soo cisto oo Soomaaliya ay wali iyadu dalbatay in maxkamadda Kenya ay diidantay in maxkamadda dacwada furto hadda markii ay soo baxday in xilliga xukuumadda ay arrintii badda la leeyahay xilligaas la sameeyay ee dad noocaas markay yimaadeen Kenya la timi baad hadashay marka arrintaas sidee kula tahay sida waxa way aniga rasaaqna usulna wanaha waxaan dacwada tagtay maxkamadda tagtay inaan ka hor dhaco maxkamadii yani waxa keenay kartay inay u isticmaalaan dowladda Kenya wax kasta oo aan sheego horta sidaas dadka waan uga gaabsaday arrintaasna arrin qareennada aan isla ogeyn bay ahayd ilaa iyaga ay ka cadeynayaan maxkamadda arrintan in laga gaabsado mar hore imaan karay aan ka hadli karay laakiin haddana badbaadin iyo sharciyada socota darteed ayaan uga gaabsaday waxaan maanta runtii aan u hadli karaa aan u soo hadlay waxa weeye qareemadii kayskii way sameeyeen
وعدها حالك سوية حدا وان هذا كلام مركز أساس درت إذا حتى قيمت أنا وهذي وأنا كفر أحسن يرنت ماشي وحسعدان وأنا بقالين يا قناة وأنا سيد اللي هو تلقى أما أي منبر السهل إنه وها أنا يجينا هيد إلى وحقود السنة ما هني إن أنا حدود ولا بدء المرة لا حد. شو ذا مثلا السينما؟ الرئيس واحد شيء كلا وكينيا يدودي ساعتها لما كبدا يجيسي أو إن حكومة هذا جدا أي لقى له شيء إن كينيا الصومالية أي سنة يوم بيركل تجين أي شيء كذا أي خلافات الأحمر أي سخاص ولا ما يستان سلبة الدولة دول أنت أصلا هذا محكمة أي كينيا جيسي أنت أقول كنت أنت صرت وارن يقول الرئيس أنا هذا أنت الرجال نقول حالات لو يكون يصير حيتونكي أي وحياة جدا أنت صحيح بعض هيدتك مركز جوي إنه كحلان ورنتي إخوة بونتهاي إيجا جوي صوت يساس لوسمي يوحس مدحوينها مركز رجاله جوي إنه كحلان الناس لكن أنا وحنا كحلا أنت خصيص أنت أنا سيدي كل وزير دمار تاسك دودي ورنتي كدودي أنت عن السهل كاي وحكوا جيل دود الشرف لله نحن حكوا جيل إبراهيم عدو وحكوا جيل عمر حاشي وحكوا جيل محمد عديس وحكوا جيل جنقلي وحكوا جيل تدبضن ومركز قلوا وزيرها دتكاس انت الله نحنسته أنا مدحوين الشيخ شريف كل ما أنت إلا وصل أم لغة أستعمية بد بيسان سويين كنت وعيان در ده الشرف لي عين ده قرن خاول انت وي أنا وحنو هذا أنت أبوي وحوي شون وزير وما أنت أسجوكت أيه وحول ما تقرح أيان دروي إن أيه ميت كودي إذا مشدودي ما أنت الوصل قولي وزير ما أنت أسجلي إني أنت سويين ما أنت تلاودي أن قادني أن كسر متقريننا ما أنت سؤال لول بأوصل إذا لول ما بح waxa maanta ay ka yeesay ee hadda ku doodaysa ama xuduudkan khaladka taagayeen waa waxay u bareertay 2015 marka in arintaas la siyaasadeeyo oo runtii siyaasad laga dhigto oo arin doorasho laga dhigto waa ayaan daro waxaan rabaa inaan runtii ka waani inaan ka waaniyo oo aan runtii aan kala dardaarmo dadka siyaasadda Soomaaliya ama isle arrimahan waxaad doorasho ku heli kartaa inaad dad kale deeqaysan oo dad kale taad yani ku sabaysan waxyaabo aanan jirin runtii Soomaali waxay aqbalaysaa waxa hadii la yiraahdo haddana qaleemada waa cadeeyeen qof kastoo Soomaali oo rabo maanta inuu ku jahil baxana dacwada iyo habkii u socdo hadda insha Allah oo بس أباد اليونيفرسيتي وأنا مع سيدي هذا بس ملك رئيس الوزراء وأباد يعني وحكت السنة بعض اليونيفرسال sidaan hadalkaaga ka dhadhansanayno waxaa ku jira in arrimahan doorashada ay salka ku hayso in si khaldan loo fasiro saxiixii 7 Abriil 2009 xukuumadda hogaaminaysay ay dawladda Kenya la gashay qaabka go'aarantay qaab ka duwan ayaa loo dhigay oo ah in xukuumaddaadu xilligaas ay heshiis iib lagu saleynayay ay samaysay marka waa tuma cidda aad ku eedeynaysid oo doonaysaa inay carqaladayso doorashadan ama cid adigu aad ku jidid musharaxiin adigu ku jidid ay reebto runtii hadda farqina fi qabrabo laakiin qolada isticmaalaysa ee doorashada Soomaaliya ee runtii ayaan darada ay si iman dara ah umar xawaayaan mud Soomaaliyeed iyaga isoo waa inay ka waantoon runtii waxaan waa arrin qaran oo u baahan anagoo dhan Soomaaliya oo dhan ugu soo dajeesato wax 2015 ee Kenya bareertay anagoo Soomaaliya oo dhan bay مسؤولين ناس عن تأنا نعوس الجسد كل كأننا تاكها هاتي أم بدها تعمل لو دي كل سؤال كانوا شيء إذا ما أنت قف الله قف يسكت عينه هو يستأنا من نعوس الجسد إنه إيش مرضى بتنقل عين أين الخدمة يا وما سنتي